madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa isku shaandhayn ku sameeyay qaar ka mid ah golaha fulinta dowlad goboleedka Jubbaland halka kuwa kale oo cusubna uu magacaabay wareegtada ka soo baxday xafiiska madaxweynaha isku shaandhaynta iyo magacaabista golaha wasiirada Jubbaland lagu sameeyay ayaa gaaraya 11 xubnood oo isugu jira golihii hore iyo kuwa cusub madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan oo wareegtadan saxaafadda u akhrinayay ayaa waxa uu sheegay inay jiraan wasiir ku-xigeenna iyo wasiir dowlayaal ka soo muuqan doona ujeedada isku shaandhayn iyo magacaabis xubno golaha wasiirada madaxweynuhu markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland cutubkiisa afraad qodobka 72 farqada 3 ee ku aadan awoodda madaxweynaha ee magacaabista golaha fulinta dowlad goboleedka Jubbaland markuu arkay baahida degdega ah ee loo qabo dardargelinta howlaha fulinta dowlad goboleedka Jubbaland markuu la tashaday madaxweyne ku-xigeenada dowlad goboleedka Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland mudane Axmed Maxamed Islaam wuxuu isku bedelayaa kuna magacaabayaa xubno ka mid ah golaha wasiirada Jubbaland mudane Maxamed Yuusuf Cumar wasiirka garsoorka cadaaladda iyo arrimaha diinta mudane Aadan Ibraahim oo xirsi wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga injineer Ismaaciil Axmed Garas wasiirka howlaha guud iyo guryeynta mudane Cusmaan Xuseen Fayruus wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha mudane Cabdinuur Cali Aadan wasiirka ganacsiga iyo warshadaha Dr. Mursal Maxamed Khaliif wasiirka caafimaadka injineer Cabdi Xuseen Maxamed wasiirka warfaafinta tiknoolajiyadda iyo isgaarsiinta mudane Caydiid Sulaymaan Xaashi wasiirka deegaanka iyo dalxiiska mudane Cumar Maxamed Cabdi wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka mudane Maxamed Xasan Maxamed wasiirka xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa mudane Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud wasiirka macdanta tamarta iyo biyaha waxaa jiri doona qayb kale oo xubnaha golaha wasiirada wasiir dowlayaal iyo wasiir ku-xigeenno oo ayagana soo socdo dekreetadani waxay dhaqan gelaysaa markuu saxiixa madaxweynaha wuuna saxiixay isku shaandhayntan lagu sameeyay qaar ka mid ah golaha fulinta Jubbaland ayaa noqonaysa tii ugu ballaarnayd ee uu madaxweyne Axmed Madoobe sameeyo tan iyo intii uu noqday madaxweynaha Jubbaland waxaana la filayaa in xubnaha ka dhiman golahan isku shaandhayntooda iyo magacaabistooda la soo dhameystiro toddobaadyada soo socda Axmed Maxamuud Mercury Galmudug TV Kismaayo.